kulanka xildhibaanada ayaa si gaar ah isha loogu hayay maanta iyadoo dad badan ay ka cabsi qabeen arinta la xiriirta muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda oo muddo xileedkoodu dhammaaday maadaama dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku heshiin la-yihiin weli arrimaha doorashooyinka islamarkaana uu baaqday kulankii kan ka horeeyey kadib markii uu buuq ka dhashay kulankii sabdidii ay isugu yimaadeen baarlamaanka waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA la hadlay kulanka kadib xildhibaan Faysal Cumar Guuleed jawigu maanta wuxuu ku furmay si degan oo ay ku jirto nabadii oo ay baarlamaanku ku furmay in jawiguna si fiican buu ahaa waxaan laga dooday ajandayaashii ay soo jeediyeen gudoonku shikigan badan waa dadka mucaaradka un baa qaba iyo idaacadaha buunbuuniya annagu ma hayno meel uu ka jirana ma maqal wax jirana maaha waxaan ka warsugaynaa shirarka socda ee ay dawladda iyo dowlad goboleedu wadaan wax muddo kororsi ilaa hadda aan maqlay ma jirto iyo meel ay ka jirto midna ma arkin Ilwaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi baan ahay horta waxaan ku sheegayaa baarlamaanku muddo kororsi uma baahna waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno waayo vacuum wax la yiraahdo ha iska tagto dawladdu baarlamaanku ha tago ciliyay bedelin xafiisyadu ha banaanaadeen dee waa fawda taas wax jira maaha cidda qabtaana waa cidaan waxba garanba dawladnimo wax ka garanayn annagu muddo kororsi uma baahnin sharciga noo banaynaya dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaanka la helo laakiin waxaan jecelahay dalka in doorasho ka dhacdo diidmadii gobolada iyo dawladdu ay isdiideen ayaa keentay 17 September in la yiraahdo doorasho dadban la aado doorasho dadbanna waa la qaban laayahay ilaa hadda saacadan waa lagu heshiin laayahay waxaan soo jeedinaynaa in adduunku sidoo wax u doorto meel adduunka qabiil wax lagu doorto ma jirto anaga maahane 198 dawladood baa jirta laguma doorto qabiil wax in lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran oo dastuurka ku qoran oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo coda magacaygu horta waa xildhibaan Suur Diiri Carab baarlamaankan waxaan dhex joogay 20 sano baarlamaan wiis qabsada oo isku buuqa oo is dhibaateeya oo dhexdiisa wax walba way ka dhacaan waana dimuqraadiyad laakiin hadda meesha ay ku socoto iyo sida lagu wado waxa ay ku socotaa in baarlamaanka lagu burburinayo waayo waxa weeyaan nabad ilaalinta baarlamaanka booliska iskale madaxtooyada irideedana militariga fadhiya laakiin waxa la keenay ciidamadii gaashaan ee ku xaraysnaa hay'adda nabad sugiduna shaqay leedahay laakiin hay'adda nabad sugidda in loo adeegsado awood baarlamaanka loo adeegsado in hay'adda nabad sugiddu ay noqotay annaga saaka waxaan ciidamada wada afka duuban leh oo kuwii gaashaana ayaa iridii madaxtooyada la dhoobay cabdibilayaashii nabad sugidda ayaa madaxtooyada iridaan lagaga gooyay waana jidka aan maraynay wayna dhibaateeyeen wayna joojiyeen baaburkaaga fur baa la yiri waana la baaray sidan ay ku socoto laga dayn waayo oo hay'adda nabad sugidana laga jooji waayo baarlamaanka ay ku haysa dhibaatada waxay noqonaysaa in adduunka ummadda loo sheego Saynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho dhinaca kalena qaar ka tirsan shacbiga ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha ay salka ku hayso isfahmi waaga iyo shirarka maalmihii ugu dambeeyay ka socda magaalada ee ku saabsan in xal loo helo doorashada iyo heshiiskii 17 September ay madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay wada gaareen wariyaha VOA Cabdicasiis Berro ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Muqdisho waxaana uu weydiiyay aragtidooda ay ka qabaan xaaladaasi siyaasadeed ee xilligan taagan Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxay natiijo u yeelan laayihiin daacad baan la isaga ahayn inay wax hagaagaan hadii la rabo inay wax hagaagaan waxa daliil ah hadii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan wax waa hagaagi karaan laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato marka maanta waxa yaala dadku daacad isuma aha mana hagaagayso Muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halka ay taagan tahay dadkuna la isu urbuko wax hagaaga ma jiraan ka dhiman tahay daacad iyo daacad la'aan waa khiyaamooyin baa ka dhacay laaluush waxyaabaha reality-ga runta la isma sheego wallahi miraheedu dadka oo Soomaalidu oo tusta waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin dalkooda xor u yihiin maamulan karaan fikradaas wax lagu keeni karaa laakiin muxuu ahaayay markii la yiraahdo mindi ku taag ma dhamaan karayso qaba anigu fikradaas aan qaba Raxmaan Aadan Cabdulle
ku nool Muqdisho wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxa weeye mirdhal la'aan waxay u noqdeen waxa weeye ilaahay wuxuu yiri la khayra fi kathiir min najahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas marka intaasay ka baxsiin maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadda oo shirarka u fadhiyay waxay noqdeen wakiilayaal ay noqdeen kuma aysan xisaabtamin maanta ummadda waxa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaarta ay ku jiraan ma aysan ku xisaabtamin muqayfka iyaga ku jiraan ay ku xisaabtamayaan ilaahayna waa kula xisaabtamaya marka sidaas ayuu shirkooda miradhal u noqon waayay waxay noqdeen wakiilo Soomaaliya ma noqonin wakiilo dad kale ay noqdeen marka waxaan dhihi lahaa inay ay ku soo dabaalaan Soomaali seen dhahda ma weyso weeshiileed gacmo kale ay ku jirto sidaas aan isleeyahay fikir magacayga Faadimo Maxamed joogta Muqdisho walaa aniga fikirkayga shirarkan ayaa waxa la sheegayay Soomaalidan isjiidanaysa iska hor imaanaysa aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho ilmaha kan weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid rabaa ku dhufto kan kalena inuu ka soo jarto saano kala madaxda aniga u arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaaxadii ka dambeeyo rabaa oo maxaan ku dhahaa uu dhaho aniga ana kaaga dambeynaya amal oo kaleeto marka waxa soo kaleeto wax suurta galayana ma aha wax soconayana ma aha maxaan ku dhahaa madaxda la sheegayana wax jira hadda anigu uma arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa isimada iyo dadka dhalinyarada ah si gaar ah u tashadaan oo ha ka tashadaan Soomaaliya waxa xal lagu gaari karaa shirkaas oo laga bixi karaa ayadoo nin walba uu ka tanaasulo waxa uu tirsanayo mid walba qodobku tirsanayo uu ka tanaasulo aabaha u weyn oo meesha xukumaana isaga wixii caruurtiisii oo kala weeye inuu maxaan ku dhahaayay fiirsho oo dhaho iyaga uu sabro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltamo ma ahan aniga waxa aaminsanahay dawladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasulo cabsida ilaahayna ha la eego dhibka iyo abaaraha Soomaaliya haystay rafaadka in ku jirno waa loo jeedaa maxaan ku dhahaayay dadka ha loo dhibriyo oo dhalinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibtootay oo colaad sokeeyay saacada uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan ku dhahaa gacanta ku haysaana si wanaagsan waa in loo soo afsharaa shirka waxay waxa la su'aashaada weydiisay hadaan ka jawaabo waxa ku jira gacmo badan baa ku jira Soomaalida باورك iyo awooduna iyaga maaha waxa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dawladda reer galbeeda Afrikaan Arab dawladda shisheeye gacanta kula jira anoo aan dawladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaya qolada beesha caalamku waa ka mid nin kasta oo maamuladaas kamida ama maxaa la yiraahdaa maamuladaas maamulka dawladda kamida maamul goboleedyada xoogooda inta badan qolo walba qolo shisheeye dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yiraahdaa fikirkooda ay qaadatay isla markaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax for sale ah oo ninka soo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto interestkiisa oo fiirsado dal ka fikirin dad ka fikirin diin ka fikirin caalam ka fikirin ummadii aan ka fikirin ana noolaanay idinka dhinta halkaas ay taagantay dhinacaan nimankan Soomaalidana dad loo taliyo waa qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaay waa remote-kii gacanta gadaal looga hayaa bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Sansafri waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho fikirkayga hadaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyay shirarkii hore ama dhusmareed 1 2 3 iyo shiraraha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aaminaad darro mas'uuliyadda koobaad is-aaminaad darro sababtoo ah Soomaalidu isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aaminaad darradaas iyo gacmo shisheeye oo ay intii dadka siyaasiyiinta iyo dawladduba ay la kala safan yihiin ayaan isleeyahay waxay idin dhaxaad u tahay intii dhibaatada waddankeena ka jirta shirarkaasna hadday miradhal noqon waayeen dee runtii dawladnimadeennuna ma noqon doonto dawladnimo awood leh marka waxaan u baahanahay shirar miradhala in la sameeyo oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanayo inay noqdaan shirar miradhal ah